bilowga dhismaha wadada nabadda ee isku xidha gobolada Saraar iyo Buuhoodle gaar ahaan degmooyinka Qorlugud iyo Wadaamago ayaa maanta si rasmi ah loo bilaabay waxaana dhismaha bilowga wadadani ka soo qayb galay maamulka gobolka Saraar kuwa degmada Caynaba maamulka degmada Wadaamago iyo waliba guddiga gacanta ku haysta dhismaha wadada nabadda ugu horeynba waxa halkaasi ka hadlay maayirka degmada Wadaamago Suldaan Xasan Cabdilaahi Xasan Mataan Cabdilaahi Aadan Dhaga Waraabe oo kamid ah guddiga gacanta ku haysta wadadani iyo waliba qaar kamid odayaashii waxgaradka deegaankaasi waxayna sheegeen in la bilaabay maanta 5 kiiloomitir oo carakaawa waxayna qurba joogta qoqol joogta iyo xukuumadda Soomaaliland ugu baaqeen inay ka soo qayb qaataan dhamaystirka wadada isku xidha gobolka Saraar iyo Buuhoodle halka waxa si rasmi ah u bilaabantay wadadii nabadda taasoo intii ay xidhnaydna carakaawa la goynayay saakana si rasmi ah u bilaabantay taas oo aad iyo aad u taabacsannahay in waxtar la soo taro la caawiyo degmada muruqmaal qof muruq ka geysta iyo qof hanti ka geysta intaba faliya tafadal baanu leenahay ha laga qayb galo maanta oo ay taariikhdu tahay 5tii bishii koobaad ee 2022 waxaanu halkan isugu nimi dardargelinta wadadii ama in sumugla maanta ay u bilaabantay wadadii nabaddu oo hore ay u dhaxdhigay wasiirka wasaaradda wadooyinka Cabdilaahi Abakor ayaa maanta si rasmi ah ugu bilaabantay wadadaas oo marxalado kala duwan soo martay oo ka bilaabantay intii anagu gudi ahaan aanu gacanta ku haynay aanu ka bilownay farraysin ama dhaqaale ururin ka bacdi aanu qalab soo iibinay kadib aanu sarfeeyin sameynay kadibna aanu jarnay ciidii la dhigi lahaa hadda maanta waxaanu bilownay inaanu dhigno ciidii 5 kiiloomitir oo inoo go'an oo ku eeg ilaa iyo kurta cinjirka wadadanu isu sheegmayno waa wado muhiim ah gobollo badan bay isku xidhaa gobolka Sool gobolka Saraar gobolka Buuhoodle gobolka Togdheer intaasoo gobol bay isku xidhaa waxay kaloo inagu xidhaa markay Soomaaliland ka baxdo Itoobiya inagu xidhaa oo Soomaaliya inagu xidhaa marka horta wadadan waxay leedahay waxtar aad u badan bay bulshada u leedahay reer Soomaaliland markii koobaad wadadan muddo dheer baa la waday qurba joog baa dhaqdhaqaaqan iminka aan wadno kow ka ahaa haddii ilaahay ka dhigo mar labaadkii wasiirkii wadooyinka Cabdilaahi Abakor ayaa halkan dhagax dhigay wasiirku maalintii halkan wuxuu ballan qaaday inuu shidaalkiina keeniyo injineerada soo dirayo shidaalkiina wuu keenayo waa ka lagu shaqaynayo injineeradina way joogaan oo wadaday wadaan wixii kale ee wasiirku uu ballan qaadayna waa ka sugaynaa insha Allah waliba dhaqsana waa uga helaynaa waxa kale halkan contributionkii ugu fiicnaa ee ugu waxtarka roona ka geystay gobolka Saraar degmada Caynaba maamulkeeda maayarka iyo xogayaha iyo ku xigeenka iyo degmada Wadaamago iyaduna waa sidoo kale aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta wadadii Wadaamago oo dhaqaaqday wadadii nabad oo dhaqaaqday waana laga soo qayb qaatay meel waana waa la mariyay waa aragtaan 5 kiiloomitir ayaa ciidii la bilaabay arrakaawadii la dhigayaa qurba jooga u dhashay degmadan iyo dawladana xil bay ku haysaa tafadal ha laga soo qayb galo qof waliba wixii uu gashado ee gaystaabu leeyahay waa bilaabay wadada ilaa uu si nabadgelyo lagu marnooyee wadada saaka furantay ee arakaawadeedii soconayso waxaan leeyahay ilaahay tii nabad lagu maro ee hagaagta ilaahay ha nooga dhigo way samaysmi doontaa shicibka haddaanu nahay naf iyo maalba waan barbar taaganahay mid daba jira mid gudaha jooga dawladda oo wax ka ogada dhowr jeer iyaduna markii horeysaba dhagax dhigtay waxaan leenahay wadada loo soo jeesto hal la dhameeyo waxaanu maanta ku sugannahay wadadii nabadda waxa diyaara arakaawihii oo cagaftii ay diyaar garaysay haddeer 5 kiiloomitir markhaati baanu ka nahay wafdi inay guddidaas 5 kiiloomitir oo arakaawihiisina diyaar yahay dhigistina ay bilaabeen
ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Saraar Nuur Qaasin Qodax iyo xogayaha dowladda hoose ee degmada Caynaba Cumar Maxamuud Muuse waxayna u mahadnaqeen cid kasta oo ka qayb qaadatay dhismaha wadada nabadda ee isku xidha gobolada Saraar iyo Buuhoodle. sababta waxa weeye waa wax ummadda ka wada dhaxaysa wadooyinka waa wax dadka isu fira ee ganacsiga iyo faa'iidooyinka kooga ka ah waxaan filayaa dee qaadhaan baa la qaybsaday deegaan baa loo qaybsaday magaalo loo qaybsaday wixii dee qaadhaankoodii keenayna waa ku mahadsan yihiin oo aad iyo aad baan ugu mahad celinayna wixii qaadhaankii weli ku dhiman yahayna iyagaa isoo iyo guddida haddii alla ku reeyay arrintaa ayaan laga biqin annaguna waxa weeyaan degme ahaan haddaanu de gobolkii Saraar mas-uuliyiinteedii maanta aan ka joogno oo balasaabkii uu joogay anigu aan joogno arrintaa waana ka ballanay qayb libaxna waa ka qaadanaa sababtaa waxa weeyaan ammaanka gama rabne waxa weeye dee mas-uuliyad baa naga saaran halkan maanta waxaynu ku joognaa waddadii nabadda oo aynu bilownay inaynu carrakaawadii dhigno waa guul la taaban karo weeyaan horta run ahaantii waddadan maalin dhow waxaynu arki doonnaa idamka ilaahay iyadoo tagaasidu marayso oo halka ay Buuhoodle ka gelayso waddadan iyada ah waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa guddidii waddadan u kacday ee hindistay ee maskaxdeeda ay ka soo miirantay ayaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa ee maanta inagala joogo suldaanka guud waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahadnaqayaa gudoomiyaha guddida komishinka riyaraac oo isaguna ka mid ahaa guddidii bilowday waddadan in ahmiyaddeeda in la socodsiiyo maanta waxaa halkan taallo oo keliya inaynu bahashii bilownay in fadhiga loo kaco in qaaraanka la iska ururiyo waddada ceerigaabo markii la samaynayey dadku waxay lahaayeen war waa la iska sheekaynaya maantana waa aragtaan ardayda saacooda lagu sameeyey ardayda saaca ay dhigaysay ayaa lagu sameeyey maantana tani way rumamaysaa Salabaan cilmi Siciid Salabaan Kiko telefishinka caalamiga ee Ariel TV degmada taariikhiga ee Wadaamago.